wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta aad iyo aad bay maanta u faraxsantahay. waxaa soo booqday madaxweynihii saddexaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin isla markaana ahaa madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad ee dalka. sharaf aad u weyn bay noo tahay dhammaan madaxweyne wasaaradahan shaqaale ahaan madax ahaan inaad nagu soo booqato xarunta wasaaradda warfaafinta oo adigoo qaranka oo dhan taariikh weyn ku leh horumarkii iyo dawlad dhiskii iyo dimuqraadiyadda dhismaheedii iyo dhisidda ciidamada iyo dhammaan adigoo taariikh weyn ku leh haddana wasaaradda warfaafinta gaar ahaan taariikh weyn oo gaara baad ku leedahay. TV-ga iminkayna hor yaalla ee TV-ga qaranka la yidhaahdee daafaha dunida oo dhan laga daawado oo ah TV-ga ugu ballaadhan dalka. waxaad ahayd madaxweynihii aasaasay iyadoo xilli adag lagu jiro oo duruufta la ogyahay miidiyaha iyo warbaahintuna ay kooban tahay tiknolojiyada TV-yada ku xidhan satellite-kuna ay iska kooban yihiin. madaxweynihii aasaasay baatee waa taariikh aad gaar u leedahay. waxaa yaalla wasaaradda TV-ga iyo idaacaddaba taariikh dheer oo aad leedahay oo qaranku leeyahay adiguna aad ku suusan tahay. aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa. waa ku faraxsanay inaad na soo booqato. wasaaradda oo dhan sharaf bay u tahay, qarankana sharaf bay u tahay. waxaad tahay oday qaran oo nustambeeda oo tallaabooyinkii waaweynaa ee maalintii dhawaato aad qaaday aad odayeynaysay ee qarankaad madaxdiisa isugu keentayna iyaduna waa waxaan Afrika ku yar oo iminka innaga madaxweynayaashiina soo maray marka ay dalka soo maray markay xilka ka tagaan oday dalladoo lagu soo ururay noqdaan. madaxweynayaasha Soomaaliya markay xilka ka tagaan subaxu wareejiye subaxa dambu gaari soo istaadhaawo kalarka qabsada kii kale waxa la wacay dagaalamaya soo haysta wax madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal hore waa dhaqamada aynu ku kala duwannahay. runtii sharaf inoo ku soo dhawo madaxweyne. asna soo dhaweynaya wasiirka xiriirka golayaasha oo isna inala jooga ay sharaf noo tahay sida inuu soo booqdo. waxaan ku soo daawodsiin doonaa dhulkii aad wax ka qabatay oo isna sii ballaadhay oo sii horumaray idaacadda oo idaacaddii dib u taariikhaysneed ee 42kii la furay ee ah idaacadda Soomaaliya ku hadashay tii ugu horeysay taariikhdeeda aad ka warhayso iyaduna sida u sii ballaadhatay TV-gii sida u sii ballaadhay iyo wasaaradda sida u sii ballaadhatayba insha Allah waa ku soo tusi doonaa. raggii archive-ka hayay iyo record-ka hayo dhimi waa joogaan. xasan shukriye odayaasha oo dhami wixii loo baahan yahay oo dhan iyaga haddii la ka dhigo taariikha gacanta ku hayo oo insha Allah isugu keen dubaridi doona. aad iyo aad soo dhawo madaxweyne. aad baan idin salaamaya marka horeysa. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sharaf bay tahay inaan halkanoon dee marna madaxweyne ka ahaa waxyaaba TV-ga uu ka mid yahayna waxyaabahan ka aasaasay ahayd inaan maanta aan idinku soo booqdo. taariikhdii TV-gan aan samaynay waxay ahayd taariikh haddaan isyar dul taago waxyaabaha aan TV-ga ku keenay in la sameeyo waxaa ka mid ahayd berigaa Imbagaati baa lagu dooranayay Cabdillaahi Yuusuf 2004 markaasaa waxaan daawanaynaa iyo awil wasiirkeygii maaliyadda TV yaroo markaasi xamar toos u soo gudbinaya doorashada ka socotaa Imbagaati. markaasaa awil yidhi wax badan baan qabanay laakiin wixii ugu muhiimsanaa bana loo oo ah media niman aan dawlad bahayn baa media samaystay oo xaafada iska jooga. markaa TV waa inaan samaynaa. horta TV-gu sidaasuu ku yimid. run ahaantiina dee waxaan arkaa maanta inuu koray. waxaan xasuustaa beri au yar xumaadoo muuqaalka soo saari waayey oo dhallinyaradu markaa way ku cusbaayeen oo waxay idhaaheen waa bahalkii wax ku dhacay malaha waxbaa la naga xaday. waxba lama xadin baan idho nin aan garanayo yaqaano electronicska ayaan berigaa u yeedhay Siciid Aamin ma I don't know idinla shaqeeya. markaasaan idho bahalkii uu shaqayn waayey bal adaa farsamada yaqaanee bal eeg. markii dambe kii muuqaalka soo saarayay TV yaroo xumaaday laga soo saaro oo ku rakabay markaasuu saan u shaqeeyey. waxaan filayaa maanta inaad wax badan
ka barateen miidiyii adduunkuna iminka wuxuu u socdaa si xawli ah oo maaragtaanay dee qof kastiba t v buu haystaa mobilkiiba t v noqdo miidiyihii maanta wuxuu noqday miidiya qof kastiba u haysto run ahaantiina waxa weeyaan horumarkaa socdana waa dowladnimadu waxa weeyaan jaajuur ninba inbuu saarayaa way soconaysaa inay istaagto ma ahin horumarkuna uu soconayaa laba daraadle anugu kolleyba inaan soo baqdo way ahayd waxaana jecelahay bal wixii ku duugnaa wixii khudbadan akhriyayay safaradii aan tagay wuxuu dhan ba halkan aan kusoo shubi jiray waxaasoo dhan buug baan inaan qoro rabaa oo taasna waxaan jecelahay in la ii ururiyo oo aan hadduu ilaahay idhaahdo waayo maskaxda bini aadamku ma wada hayn karayso waxaas marka horka ay ku jirto maa lagu ogaanayaa waan idiin habalyanayaa run ahaantii wax badan baad barateen de imanka maalintaa la furayey iyagoona t v ninawna ka shaqaynin baa inlamada idaacadda qayb ka mid ah uunbaa shaqada bilaabay run ahaantii waanan arkaa inay meelo badan dibadda waan ku arkay mar la dhana joogay mar meelo kale aan tagay dee t v oo ilaa meelaha gaadhay berigaa dhaqaala buuranna lama hayn laakiin waxaan furaha ku rognay bal horta in la furo oo meel dadku ka hadlo loo sameeya local baan marka hore laakiin markii dambe in hawadan lala gelin kara waan ogaanay kharashkayga bato annagu hawada aad marmar baan gelin jirnay laga maarmaana inta badan baanu gelin jirin waxaanan calina iminkan isma baranay burco anoo madaxweyne ku-xigeenah isagoo dhallinyaro ah oo ayaan berigaa nabadaynta burcahan ka waday beriga 1979 berigaasaan musqulay markaa dee raggu iska soo daba korayaa anugu iminka waa sii gaboobayaa cali waa ka da'daydiibu ku soo socdaa maasha allah khayr baan idiin rajaynayaa insha allah